أرنيك دمايو ودن كسر دمايو بالسكور يعني وعذري جهري يرجع هيسي طلعوا أنا ما هو هيصعبة ومية بحس كويسة هاي حبي أنا سيدين حد سرعي نوع waxaan ku weydiiyay nin wakiil xagan professor ka ahay waxnoo soo jeediyay taariikhna dhigay nin kalena waa kii inoo qanaayadayay bal wixii ka dambeeyay dagaalada Axmed uu saadaashida bilaabay iyo wadankii iyo qarankii iyo masraxii isaga ahaa xaguu ku dambeeyay wala iga dambeeyay dhulkii wariyasiino bal horta intaadan halkaas soo qadin horta waxa dhehdaa intaan wadanka soo tagay maxay iga dambeeyay haddaan bilaabo waxaad oranaysaa dawlad baa dhalatay waxaad oranaysaa dawlad baa dhacday taariikhdii waxay isugu tubishwanaysaa 1400kii taa inaga daa 80kii aynu ka bilowno wixii ka dambeeyay iiga sheekay waa mahadsantahay walaal markaad wadanka soo tagtay waxa ku dhaafay waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin horumaradii wadanku gaaray iyo haddana sida dib ugu burbureen horumar baan gaarnay waad hadda arkaysaa sidii Axmed uu fanka saas u lahayd gacmaha u taagay marka horumarkii la gaaray maxaa ka dambeeyay fanaaniinta Soomaaliyeed sidii walaalkeen hadda Anwar marka hore u magacaabay dadka masraxa Soomaaliya aad ugu mashquulsana khayraalaas iyo badankood hadda waana dhaafeen haddana inta joogta baan rabnaa inaan ku baraarujino waxaan u soo bandhignaa waa sidaas marka mar walba waxay tilmaamayaan waxaan ugu bixinaa masraxa iyo waayihii Soomaaliya waayaha waqtiga ay Soomaalida hadda ay mareysay seebay uga turjumaan dadka mu'allifiinta riwaayadaha Soomaaliyeed waxaan ka hadlaynaa marka hadda Anwar baa soo qaaday wuxuu sheegay in xirmadoonka laga soo qayb qaatay in marka hore ay hal macnaha masayraha qaarkood ka dhashay wadada kale hadii muusig leeyihiin annaguna ma wax samaysano marka maanta waxaan la wadaagaynaa bal qaybihii ugu dambeeyay oo hadda markii inta la idin fasiray ninka goboladoonka wato hadda ka sheekeynaya iyo mucaaradkii iyo macnaha sidii challenge uga dhacay dadkii aqoonta yeeshay kulliyadda xalana ku jira oo Saciid Saalaxi kaariyo iyo Hadraawi ay kamid ahaayeen markay riwaayadaha kale dhalinyaradii kale oo kamid ah rag kale oo macnaha ayagu traditionka afka Soomaaliga dhaantada soo tumi jiray ama heelaha soo tumi jiray oo ka bacdina fanaaniinta noocda qori jireen challenge-ga dhexmaray Axmed baa xoogaa ka taabtay saas dib ugu mutagan marka waxaan ku sheegayaa ummadda Soomaaliyeed mar walba waayay wareys annaga waaya hadda nalsiyo waayihii wadanku burburay marka annaga waxaan isleenahay bal masraxii dadkii ma isdiibaan marka wadanku burburay ilaa waxa kaalmeynaya waa nabadeen maxay yiraahdeen marka waxaan ku soo qaadanayaa marka 8meeyada aakhirkeedii marka uu arkay wadankii inuu gubanayo waqooyi waa gubanaysa marka dambe waxa la gaaray in la gaari waayo 1989 meesha ku dhigan inaad balcad tagi weydi oo dawladda Soomaaliyeed ay xamar ku ekaatay marka Cabdullaahi Qasho oo tilmaamaya bal wixii qaranka Soomaaliyeed ay ku sugnaayeen waqtigaas iyo meesha loo socday iyo wax hadda lagu sii socdo qala wax ka tilmaamay baa masaajidina waxaan rabaa in wax yar ka tuso ياسين لما يسكر وجهه ده مو سو مرة